nabad saaxiibayaal waa mar kale iyo barnaamijkii wehelka wariyaha qaybtii 10aad waxaynu ku soo qaadanaynaa waraysiga. waa maxay waraysi, qaybaha waraysiga iyo waliba maxaa laga doonayaa saxafiga si uu u qaado waraysi tayo leh. waraysi waa sheeko u dhaxaysa wariye ama wartabiye iyo waliba shakhsi oo ku salaysan danta guud. waa wada sheekaysi u dhaxeeya laba qof ama ka badan oo su'aalaha la weydiiyo la waraystaha si xog loo helo. in ku dhow 90% wax walba oo ku jira warka waxay salka ku hayaan ama xiriir la leeyihiin waraysiga. wariyaha shaqadiisu tahay warsoo tabinta waa inuu haystaa xirfad ku filan oo ah samaynta waraysiyada noocyada kala duwan. diyaar garow taxadar wata waxa uu suuragelin karaa in la waraystuhu burqado ama se uu warbixino fiican dhiibo. dadka la waraystaa qaar ka mid ah horey ayay u bixiyeen waraysiyo oo way yaqaanaan qaabka waraysiga loo bixiyo, dhib weyna kuma jabna, halka qaar kalena ay ku cusub tahay waraysi bixinta. markaasi waxaa lagaa rabaa xeeladda labada qofba inaad kala garan kartid oo aad si gaar ah qof walba ula dhaqmi kartid. waraysigu waxa uu mamar noqdaa mid haybad ah oo dadku markaasi waxay ku kala fiican yihiin waraysi qaadida. qof baa waraysiga aad ugu fiican oo su'aala samaynta xirfad weyn ku leh, qofna way ku adag tahay. hase ahaatee barashadu waa muhiim. qaabka in waraysiga loo qaado la bartaana waa xirfad la baran karo oo sahlan. hal qodob oo weyn ayaa ugu muhiimsan waraysi qaadida, waana la socoshada qofka waraysiga laga qaadayo mar walba xaaladiisa. waxaa jira qodobo muhiima oo tayo u yeeli kara waraysigaaga. waxaa ka mid ah inaadan bixin dhammaan su'aalaha aad waraysiga ku qaadayso, laakiin si guud u iftiimi waxa waraysigu ku saabsan yahay. waxaad dhihi kartaa, mudane wasiir, waraysiga aan kula yeelanayno waxa aanu ku eegaynaa isbeddelka siyaasadeed ee dalka ku soo fool leh iyo weliba xiriirka dowladdaada iyo mucaaradka ka dhexeeya. markaasi waad iftiimisay guud ahaan waxa waraysigu ku saabsan yahay, laakiin macnaheedu ma ahan dhammaan su'aalihii in aad bixisid. qodobada kale ee muhiimka u ah waraysi qaadida waxaa ka mid ah inaadan ka soo daahin amase wariyuhu ka soo daahin goobta waraysiga. ma jirto wax ka xun in qofkii aad waraysan lahayd uu ku sugo oo adigu aad dahdid. qalabka wariyaha waa inuu iska tijaabiyaa. haddaad camera wax ku duubayso, haddaad raadiyo wax ku duubayso, dhammaan iska eg qalabka ma shaqaynayaan, batarigu sidee yahay, ma kuu buuxaa, waxbaa ka dhiman. dadku waa ka carowdaan in ay dib u celiyaan ama dib u duubaan waraysi ay mar bixiyeen ama dib loogu soo cesho goobtii ay waraysiga ka bixiyaan. xushmaddu waa muhiim, waana lafdhabarka waraysiga. haddaad madaxweyne la yeelanayso waraysi, mudane madaxweyne, maxaad kala socotaa tacadiyada in xukuumaddaada ay askar u qorato carruurta aan qayn gaarin? sharafta mudane ha ka tegin, macnaha ama si sharaf leh qofka macnaha sharaftiisa muuji. sidoo walba sharaftu keliya ma ahan dadka mas-uuliyiinta ama xilalka haya, qof walba sharaf ayuu kaa mudan yahay. meesha waraysigu ka dhacayo marka adigaa go-aan ka gaari kara. haddii sharqani jirto, shimbiro ay qaylinayaan ama gawaari guuxood la maqlayo, adiga ayay waajib kugu tahay in aad la waraystaha ka wareejisid goobta waraysigu ka dhacayo ee buuqa ka jiro ee aad u geysid meel degan. markaad waraysiga qaadayso waxaad wakiil ka tahay marka bulshadu waxay jeclaan lahaayeen inay matalanba madaxweynaha weydiiyaan, waa inaad u weydiiso. ma habboona su-aal dadka maskaxdooda ka guuxaysa oo ah in la weydiiyo madaxweynaha inaadan weydiintaasi waa mid khatara. cilmi baarista marka waa lafdhabarta waraysiga. arrintii aan hadda ka hadlaynay ee ahayd carruurta askarta loo qorto ayaad rabtaa inaad wasiir wax ka weydiiso ama agaasimo wax ka weydiiso ama madaxweyne wax ka weydiiso. ka waran haddii aadan wax sidaas ahba kala socon mawduuca carruurta ka sheekaynaya amase carruurta askarta loo qorto aadan waxba kala ogeynba. waxaa kugu filan oo keliya waxa aad sheegayso waa been amase xagee ka keentay warkaas. laakiin haddii aad baaritaano adag soo samaysay waxaa dhici karta in aad iska difaacdid amase doodahaaga aad u heshid daliil la cuskan karo.
waxaad dhihi kartaa waxaa lagu soo daabacay journal hebel ama television hebel, waxaa qiray ururada madaxa bannaan gaar ahaan urur hebel, adiga oo doodaada adkaysanaya. su-aasha ugu muhiimsan oo aad isdhihi karta marka xoogaa waa lagu dheeraan karaa, ugu bilow oo ku hormari su-aalahaaga. saaxiibtinimo muuji, qofka aad waraysiga aad la yeelanaysid la soco, indhihiisa eeg, u muuji inaad la socotid mar walba oo waraysigu soconayo. la socoshadu marka waa mid adiga ku anfacaysa, maxaa yeelay waxaa dhici karta su-aalihii kuu qorshaysnaa su-aalo aan ahayn inay kaga soo dhex baxaan waraysiga. su-aalahaaga ku salee marka su-aal sameeyayaashii aan horay ugu soo barannay warka, sida maxay, sabab, goorma, kuma iyo xaggee. ka bilow su-aalaha ugu muhiimsan, iskana ilaali in su-aalaha aad weydiinaysid looga jawaabo haa ama maya. maxay dadku ka cabanayaan? maxaad u eegi weydeen cabashada dadweynaha? yaa ka mid a xubnaha aad xirteen iyo waxyaabo la mida. halkii marba qofka weydii hal su-aala. tusaale, su-aashan goorma ayay qabsoomaysaa doorashada baarlamaanka? waa su-aal gaaban. ka waran su-aashaasi mid la mid a haddii aad sidan u weydiisid: doorashada baarlamaanka ee aad iclaamiseen inay dhici doonto iyadoo ay muuqato in murashaxiin badan ka soo horjeedaan doorashada, goorma ayaa la filayaa inay qabsoonto? waa su-aal dheer. marka inta badan su-aalahaaga soo koob, labana ha isku saarin oo markiiba hal su-aal qofka weydii, maxaa yeelay taasi waxay ku keeni kartaa dhibaato waraysigaaga, oo qofka su-aasha ugu dambaysa ayuu mar walba ka jawaabi karaa intuu tii hore ilaawo. haddaba qaybaha waraysigu wuxuu leeyahay qaybo aada u badan, laakiin qaybo dhowr ayaan kasoo qaadanaynaa. waraysiga loo yaqaano waraysiga war aruurinta, news gathering interview, waxaa la yidhaahdaa waraysiga caynkani wuxuu keenaa xog siyaado ah oo aad u baahnayd. tusaale, waxaad agaasime isbitaal weydiisay meeqa ambulance ama gawaarida gargaarka degdega ah ayaa dawladdu idinku deeqday. markaas waxaad raadinaysid waa xog dheeraada oo aan hore loo ahayn, xog baa ururinaysa. ama dhinaca kale waxaad dhihi kartaa qaabkee ayay u dhacaysaa doorashada madaxtinimada, adigoo waraysanaya qof ka tirsan guddiga doorashada. waraysiga loo yaqaano xog caddaynta amase kala bayaaminta, waraysiga caynkane waa dhacdo hore loo ogaa laakiin u baahan fasiraad dheeraada oo la xiriirta teknolojiyad ama cilmi baaris. tusaale, mar dhexe waxay saxaafadda soomaalidu ay aada wax uga qori jireen in badda soomaaliya qayb ka mid a dalal kale lagu wareejiyay. markaasi si aad warkaasi usii falanqaysid waxaa u baahan tahay inaad wacdid qof khabiir ku ah dhinaca badda. waraysigaas aad la yeelanaysidna qofka ayaa la yidhahdaa waraysiga xog caddaynta ama bayaaminta. waraysiga kale ee xaaladaha farxadda iyo murugada, waraysigaas waxaa la yihahdaa emotional interview. marka aad waraysanayso qof ku guulaystay matalanba shahaadada Nobel Peace Prize iyo wax la midaba, iyo marka aad waraysanayso hooyo ilmaheedii weyday ama ilmaheedii uu ka dhintay, labadaba waxay la xiriiraan dareenka dadka, waana kala duwan yihiin. wariyayaashuna waxay aada uga feejignaadaan waraysiyada caynkaasi ah. waraysiga taariikhda qofka ee la yidhahdo profile interview, qofka la weydiinaya taarikh nololeedkiisa, kadibna warbixin ayuu ka dhiibayaa taarikh nololeedkiisa. hadhowna waxaa laga diyaarinaya warbixino iyo weliba qodobo kaloo faahfaahsan. waraysiga telefonka, marka telefonada lagu qaado, sida loo qaado waraysiga foolka iyo sida loo qaado waraysiga telefoonku aad ayay kala duwan yihiin. waraysiga telefonka si toosa ulama macaamili kartid, sidaan hore u sheegnayba qofkaad waraysiga ka qaadayso, maxaa yeelay uma jeedid qofkaad waraysanaysid, mana qiyaasi kartid dareenkiisa marka ay timaado carada iyo kulaylka soo wajaha qofka. okay, waraysiga aan hore loosii qorsheyn maxaa la yidhaha marka? waraysiyada aan hore loosii qorsheyn waa kuwa dhex mara wariyaha iyo weliba isha warka, sida kadiska ah oo aan hore loogu diyaar garoobin, sida wadooyinka iyo xilliyada ay jiraan isku imaatinada, mudaaharaadayaasha iyo wixii la midka. markaasi oo saxafiguba uu waraysi uusan hore u diyaarin ama su-aalo uusan diyaarsan uu qof si deg deg u weydiiyo. waraysi marka waxaa jira asna su-aalihiisa hore loosii diyaariyey. waraysigaasi inta badan
qaab waraysiyeedkani ma ahan mid had iyo goor dhaca. waxaa su-aalo diyaarsan loo diraa dad gaar ah, mas-uuliyiinta shirkado, madaxda dowladda iyo ciddii kale ee loo arko inay muhiim tahay in xog laga helo. kadibna waxa uu waraysigu dhacaa marka su-aalahaas la isla aqbalo. aqalka looga taliyo matalan dalka ruushka ee Kremlinka ayaa wariyayaasha ruushka ay u diraan su-aalihii waraysiga, kadibna waa loo ogolaadaa ama waa laga diidaa. haddii laga ogolaado kadib ayay waraysiga qaadaan, su-aalihiina dhinac uma dhaafaan. waad ku mahadsantihiin la socoshada barnaamijkan weelka wariyaha. intaynu barnaamijkan mid lamida dib u kulmi doono, oo anigoo ah cabdiqaadir cabdullaahi faryaamo oo idin leh nabadgelyo.